Sida badan dadka sabra ayaa gaara waxyaabaha wanaagsan. Soomaalidu waxay dhihi jireen ninkii sabra ayaa sadkiisa hela. Marka waxaa la ogaaday qofba qofka ka sabar badan yahay ayaa gaaro guulaha. Maxaa yeelay waxaa loo rafaadin lama helo. Wax walbo la gaarayona ee layskama gaaro ee sabr ayaa ka horeeya. Marka sabarka quud ka dhigo, sabarka shakhsiyadaada ayuu wanaajin karaa. Ahaw mar walba qof edebsan, kana edebsan dhan kasta. Dhanka dhaqanka, diinta, la tacaamulida iyo dhinac walba. Ka soo bilow edebsanaanta naftaada. Wixii qalad ah ama dembi ah ama dhibaato kuu horseedi kara waa in aad ka celin kartid naftaada. Mar walba waa inaad ku dadaashaa sabarka ayaa wanaagsan. Mar walba qofnimadaada waa inaad ilaalisaa, dadnimadaada ilaalisaa, dhaqankaada ilaalisaa, diintaada ilaalisaa. Waa jidka kaliya aad ku guulaysan kartid. Dad badan ay ku soo guulaysteen. Walaalkaygii ama walaashaydii waa si aad u guulaysatid waa inaad sabarka badisaa. Marka walaalkaygii ama walaashaydii haddii aad guul doonayso waa inaad sabarka badisaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qur'aankiisa kariimka meelo badan ayuu uga hadlay sabarka. yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wassalaati inna allaha maca asaabiriin ayaa ka mid ah aayadaha sabarka qur'aanka ee aayadaha qur'aanka ka hadlaaya oo sabarka ka hadlaaya. wastaciinuu bisabri wassalaati ayaa ku jirta. marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala in badan addoommadiisa sabarka ayuu kula dardaarmay. waxaa kaloo ka mid ah innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum biqayri xisaabin. ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu ka hadlaayo sabarka meelo badan ayuu ka hadlay. sabarka ayaana wanaagsan. ambiyadii alla subxaanahu wa ta'aala ayaa sabri jiray, asxaabadiisaa sabri jireen, dadka wanaagsanaa dhan ayaa sabri jiray. qof kasta oo sabra oo dadaala dadaalkiisana joogteeya weligiisa ma qasaaro. ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuma qasaarinayo, meel cidlo kuma dhigayo, adiga ayaa guulaysanayo. mar kasta waxaa loo baahan yahay inaad sabartid. ilaahay subxaanahu wa ta'aalana aad qalbigaada ku xirtid. dhibaato kasta oo ku soo food saarta ilaahay ayaa kaa dulqaadi karo. bani aadan ha u gacmo hoorsanin. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa gacmaha loo taagtaa, asigaa la baryaa, salaatuleelkaa la tukadaa. markaas kadib ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilbaab khayr qaba ayuu kuu furayaa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala baryadaada si kastaba ee u soo daahdo, ducadaada aad ku dadaashid, jawaabteeda si kasta ee u soo daahdo mar bay ku heleelaysaa. haddii maaragtay aad isleedahay ducadaada lama aqbalinayo, mar kasta aad ku ducaysatid baadi habeenkii markaad ducaysatid subaxii inaad ducadaada la aqbalo oo isla markii subaxii banaanka aad ku aragtid aad rabtidna marar badan waa la helaa. mar badan waxaa waaye sabarkaa la badiyaa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhibaato kugu soo socotay ayuu kaaga badbaadinayaa, dib u kaaga dhigayaa. aakhiradaada ayuu maaragtay dib lagaaga dhigayaa, mise adduunka naftirkiisaaba gadaal lagaaga dhigaya ayaa gadaalaa lagaa siinaya. marka aad ducaysatid oo ducadaada isla markii aadan jawaabteeda helin waa lagu imtixaamaya. macnaha inaad maaragtay mowqifkaada ku taagnaanaysid oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad sii barinaysid oo aadan quursanaynin, iyo inaad quursanaysid oo isdhiibaysid ayaa lagu kala fiirinaya. maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka imtixaamaadkiisa badan. qof kasta uu jecel yahay ayuuna imtixaamaa, qofka uu neceb yahay maaragtay gaalka asigna waa la imtixaamaa. laakiin sida qofka muslimka mu'minka ah khaaliska ah la oragtay maaragtay loo imtixaano looma imtixaanayo. asiga dibaa looga dhigayaa, hal mar ayaa la qabanayaa, shadiidul ciqaabaana la ciqaabayaa midka gaalka ah. marka adagoo muslin ah mu'min ah marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xiran 5 salaadood aad dukatid, soontid, sadaqaysatid, sano uma dhibtoonaysid, maalin waad guulaysanaysaa insha Allah. sabarka badi waad guulaysanaysaa insha Allah. aayaadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala niyadaada ku jiraan. aniga aayada mar kasta aniga aan xasuusto waxaa ka mid ah yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wassalaati inna allaha maca asaabiriin. marka aayadaani aan maaragtay masaajidada culummada ee wax ku wacdinaana aan maqlahda niyadaanba ku dhistaa, waa aad iyo aada maaragtay aan ula dhaca. marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilbaabo khayrka hanoo wada furo, iimaankiisa ilaahay hanogu sugo, sadaqaadeenna iyo soonkeenna, salaadeenna, acmaasheenna wanaagsan dhan ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanaga wada aqbalo, aan wada guulaysano. ilaahay subxaanahu wa ta'aala hana wada guuleeya. waan idin salaamaya walaalahaygii qaaliga ah muslimiinta ahoo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.